golaha deegaanka degmada Oodweyne ayaa maanta kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen ay xildhibaanadu kaga doodeen isla markaana ku ansixiyeen laba qodob oo kala ah xeer nidaamyaha shaqaalaha dawladda hoose iyo dhismaha xarumo caafimaad oo ay goluhu ka dhisi doonaan deegaano ka mid ah gobolka Daadmadheedh. kalfadhigan oo shir gudoominayay maayarka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen wadiba xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana ajandaha kalfadhiga xildhibaanadaasi u qaybiyay xogayaha dawladda hoose Axmed Maxamed Yuusuf waxa sidoo kale isaguna halkaasi hadal ka jeediyay maayar ku-xigeenka degmada Oodweyne Maxamed Cumar Cilmi. gabagabadii gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadan ay xildhibaanadu ku ansixiyeen codka aqlabiyadda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa lagu ansixinayo laba qodob oo runtii ah qodob yahay xeerka shaqaalaha xeer nidaamyaha shaqaalaha dawladda hoose oo runtii mudaba ay waday wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladaha hoose degmooyinka Soomaaliland gaar ahaan todobada degmo ee GPLT-ga loo yaqaano. runtii fursadaha loo sameeyay xeer nidaamyahan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne iyo xildhibaanada kale dalka waa la soo doortay waxaana soo doortay shacabweynaha guud ee Soomaaliland iyo gaar ahaan golaha deegaanka Oodweyne. xildhibaanadu waa siyaasad dhisaha qorshayaasha deegaanka degmada Oodweyne laakiin fuliyaashu waxa weeye shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Oodweyne. aqbalay xildhibaanada sharafta loo xanfilayaa in iyaguna ay runtii u coday doonaan baahida caafimaad ee loo qabo deegaankeena inagoo ka duulina in cisbitaal centra oo lacag wacan ku baxayso oo runtii loogu talagalay balansigeena yar. waxaan runtii ku ansixinaynay laba qodob oo ugu waaweynaa in golaha deegaanku sameeyaan iyagoo raacaya baahida istiraatiijiyadda deegaanka loo qabo inay helaan caafimaad. waxay golaha deegaanka intii ka soo qayb gashay si aqlabiyada u ansixiyeen in cisbitaal laga sameynayo magaalada Dabagoryaalo lacag qadarkiisu $40,000 ku baxayso ay u ansixiyeen farta u taga xildhibaanada golaha deegaanka. sida kale xildhibaanadu waxaan isla qaadanay inaan soo akhrino xeer nidaamyaha laakiin sidiisa aan u qaadanay wixii aan ka soo saarayna mooyaane wixii ku jira akhlaaqda inaan ka saarnay laakiin ku dhaqanka shaqaalaha xeerka in goluhu qaateen iyo isla qaateen taas gacanta u taagina. geesta kale xildhibaan Ibraahim Maxamed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Oodweyne ayaa ka hadlay khilaafka xisbiga kulmiye isagoo baaq ugu diray inay arrinka ku dhameeyaan miiska wada hadalka. waxa uu sidoo kale xildhibaankani fariin u diray shacabweynaha Soomaaliland taasi oo ugu baaqay inay joojiyaan taageerada labada dhinac ee xisbiga kulmiye isagoo ku sifeeyay inay taageeradu xalka sii fogeynayso waa sida uu hadalka u dhigay. أنا ما قاعد بيها حلبان إبراهيم محمد نور برغية وحن كهلا يا خلاف كان لحيالا حسبي كلمية خلاف حسبي كلمية لحيالا وحن نسوي شيء لها مدحوينها يقدميها حسبي كلمية مصبيحي إلى يسوي مادان ميس كطلا ميس صور فلسطين إلى خلافات كودا كل ما يستان هبل بتقليو هشيس لكم قالان dadweynahan reer Soomaaliland dibadda iyo dalkaba jooga iyo qaybo dawladda ka mid ah oo taageersan madaxweynaha qaybo taageersan tahay Muuse Biixina waxaan u soo jeedin lahaa taageerada labada dhinac kala taageeraysan waxay sii kordhinaysaa xasiloonida dalka nabadgelyada faraha ka sii saaraysaa waxaan abuuraya shaandan la qarxinayo waxaan dhaqan umaynaan lahaan jirin waxaan qolada u soo jeedinayaa taageerada fidinaysa maalintii la istaageeri lahaa maaha. Muuse Salabaan Maxamed, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.